بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برنامجك إن شاء الله تعالى أن السجن مثال كان يا نوب بالعبانية مركز دليرة إن شاء الله تعالى سوجستان وهذا جيستان إن شاء الله تعالى قيبت حق فلس. magaalada Oslo ee xarunta waa dalka Norway ayaa dhawaan laga hirgeliyay rug loogu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladaas iyo nawaaxigeeda. انتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. rugtan oo loogu yeero aqalka dhalinyarada ee Tawfiiq ama rugta dhalinyarada ee Tawfiiq ayaa si rasmi ah albaabada loogu furay maalinimadii Axadda ee toddobaadkii la soo dhaafay. xafladii furitaanka ee xaruntan ayaa waxaa ka hadlay Sheekh Dr. Ali Salax oo halkaas ka jeediyay muxaadaro diini ah isagoo si aad ugu nuxnuxsaday baahida loo qabo inay dhalinyaradu adeegsadaan caqligooda iyo fikirka saliimka iyagoo aan gudbaynin xuduudda. waxay daliil shaahid naatiq saarikh u tahay in qofka uu التقليد الأعمى ونوسن كذب الجلين ولا سمين جرا ونكليه لكن مركا أفكر وقارمة وهدي نسق حكمية ماشي أنا جرين هذاني آيات أنا جرين حديث أنا جرين وحنا أيهين فكر الرأيهين فكر كاوين الله أنت أنا كفوجين إيريا هذا مركا دين تأكسيسي بإذن الله سبحانه وتعالى وحكمي تحيابها وحلاقيه اللي كربي. sidoo kale waxa uu sheekhu ku booriyay dhalinyarada inaysan isdhigan oo aysan ku noolaan dariiqad isku daba noqonayso oo isdaba wareega. haddii hadda dadka dhalinyarada da'yartaa meesha la keenay haddii dadkii waaweynaa inaga da'deenaha meeshan qof walba tahriib uu ku yimid oo meel kale uu soo maray kadib nolol adag baa laga bilaabay ceyr baa laga bilaabay meel kale laga bilaabay haddii ninka dhalinyarada meeshan ku barbaaray aanu qalinka qaadin oo buuga qaadin aanu wax aqrin haddii ka waran koorsigii waalidkii uu soo maray uu soo celiyo uu yiraahdo anna ceyr baan qaadanaya أنا نوعاً ما أبيه ماشان بوكة تهريب إنت هذا أما الله لا أبكي والدين توي سمين جيران مجا عن بدل باسبور كان بدل هدو سعليو وحين قلنا ثقافة مركب مان كيسي أنا أديكسن وحنا مركب إسكو أو ذي ريال ما أنا وليس أنا كبحين وأنا ديب كذي مركب. sidoo kale waxa isaguna xafladaas la qiimo la ka soo jeediyay Sultan Cabdiraxmaan oo isagu ka socday xarunta Tawfiiq Islamic Center ee magaalada Oslo oo ah xarunta iyadoo hirgelisay goobtan. markii aan mariskan furaynay in codsi badan oo inooga yimid waalidiinta kadib ay masaajidku wuxuu soo go'aansaday inuu mariskan sameeyo waqti badan kadib ayaa loo guuleystay in la sameeyo. dhanka kale waxa iyaguna halkaas hadal qiimo leh ka soo jeediyay waalidiin dhowr ah oo iyagu tilmaamay baahida loo qabo furitaanka goobtan kulligoodna waxay isku raaceen wanaagga ay leedahay xaruntani. dhalinyaradana waxaan leeyahay ilaahay jiil badbaadiye bulshada Soomaaliyeed ilaahay haydan ka yeelo inta hawshan isku soo hawshay markaska ana waxaan leeyahay hadii 200 kun ay inala badan tahay ilma kaliya oo aynu weyno milyan isma gooyaan. xaruntan ayaa lagu wadaa inay noqoto meel faa'iido weyn u ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Oslo iyo agagaarkeeda waana meel ay kaga faa'iideysan doonaan barashada diinta Islaamka iyo tarbiyada wanaagsan. waxaa kale oo rabay inaynu waalidiinta isku ogaano dhalinyarada meeshaan loo furay umayna furanin inay ku ciyaaraan kaliya waxaa loogu talagalay in jadwal loo sameeyo jadwalka isaga ahna uu noqdo inay markay daalaanna ku ciyaaraan marka kaleentana duruus loo sameeyo waxaa loo sameeyay hoolka guddi fulin oo dhalinyaro ah iyo golo shuure oo odayaashii iyo mashaayikhda masaajidka kooban. qaar ka mid ah dhalinyaradii iyaguna ka qayb galaysa xafladaas oo cabiraya dareenkooda ayaa waxa ay yiraahdeen meeshana loo furay markaas saasaan uga faa'iideysanaa si fiican baa uga faa'iideysanaa anigu ka meeshan ku faraxsanahay meeshana aad u fiican tahay dhalinyarta Soomaalida ka faa'iideysanayaan haddii doona wax ka baran karaan kana fiican meelaha kale la tagayo marka anigu waxaan oran lahaa dhalinyarta Soomaali meesha ka faa'iideystaan. Universal TV Umar Abdi Afay Oslo Norway.